aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi ay ku dhacday diyaarad dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay gaaraan maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug halkaas oo wali ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada haddaba si aynu u helno wararkii ugu dambeeyay waxa haatan si toos ah qadka magaalada Muqdisho ugu jira wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan Ibrahim duhur wanaagsan bal marka hore warka ku saabsan diyaaradan leeyahay waxay ku dhacday magaalada Beledweyne aad baad u mahadsan tahay xasan cumar wax yar uun ka hor intii aanan idaacada soo galin ayaa diyaarad yar oo siday gargaar oo ka timid dalka Djibouti waxa ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa la sheegay markii ay damacday in ay cagaha dhulka dhigato in ay afka dhulka dartay dabadeedna dab xoog leh ayaa ka kacay taliyaha ciidamada Djibouti ee gobolka Hiiraan Colonel Abdullahi Muuse oo aan goordhawey telefoonka kula hadlay magaalada Beledweyne waxa uu sheegay in 3 qof oo shaqaalihii diyaaradaasi ahaa dhamaantood laga badbaadiyay balse waxa uu sheegay in diyaaradaasi ay guud ahaan ay burburtay diyaaradaasi waxa uu sheegay in markoodii hore ay ka tagtay Muqdisho dabadeedna ay tagtay Djibouti kadibna halkaas ay gargaar ka soo qaaday oo ay Beledweyne timid wuxuuna sheegay in gargaarkaas loogu talagalay dadkii ay saameeyeen fatahaadihii dhawaan ku dhuftay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne wuxuu sheegay in markii hore loo keeni waayay sababaha la xiriira iyadoo xayiraad ay saarnayd dulimaadyada gudaha sabab la xiriira cudurka coronavirus darteed sida daraadeedna maadaama la furay diyaaradaha gudaha sida daraadeed uu gargaarkaasi ku yimid magaalada diyaaradaasina ay sidee xamuul sidaana ay ku burburtay xasan ilaa hadda macadda sababta keentay dhicitaanka diyaaradaasi waxayna sheegeen taliyaha iyo maamulkuba in la baari doono sababta keentay burburka diyaaradaasi gurdhaweed ku dhacday Beledweyne Ibrahim wad mahadsantahay dhinaca kale waxa la filayaa maanta in wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay gaaraan magaalada Dhuusamareeb maxaa ka soo kordhay arinta durba waxa Dhuusamareeb gaaray xubno ka tirsan ilaalada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale halwadeena ka tirsan xafiiskaasi kuwaasi horudhac u ah safarka ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre uu ku tagi doono magaalada Dhuusamareeb qorshuhu wuxuu ahaa in gelinka dambe ee maanta uu ra'iisul wasaaruhu taga laakiin ilaa hadda wax iska bedelay jadwalkaasi ma hayno inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay suurtagal tahay in uu dib ugu dhaco ilaa berito subaxii safarka ra'iisul wasaaruhu wuxuu daba joogaa kulankii madaxda maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaaladaasi oo habeen hore lagu soo gabagabeeyay Dhuusamareeb kana soo baxeen go'aamo ay kamid ahaayeen maadaama guddiga doorashooyinku ay sheegeen in doorashadii cod iyo qof la qaban lahaa aakhirka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda aanay dhici karin ilaa lagu daro muddo dhowr bilooda ay tahay in saamilayda siyaasadda madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalkuba ay ka tashadaan in doorashadu waqtigeedii ku dhacday isla markaana hab farsamo oo la isla ogol yahay ay ku dhacday sida daraadeed ayay u jeediyeen madaxda federaalku inay iyana yimaadaan Dhuusamareeb oo shir wada jir ah ay ka qayb galaan dabcanna arintaasi ay taasi daba joogtaa waxaan la filayaa maalmaha xiga in uu isna Dhuusamareeb u socdaalo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo